kooxo burcad koonfureed ah isla markaana hubaysnaa ayaa waxay xaafadda ay Soomaalidu degan tahay ee magaalada Johannesburg ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa dhalinyarada ka shaqeysata wadankaasi. Allah u naxariistee muwaadinka Soomaaliyeed ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdiraxmaan Siyaad. muwaadinkan ayaa lagu dilay banaanka dukaan uu ka shaqeysanayay oo ku yaala dalka Koonfur Afrika. ciidamo ka tirsan biliiska magaalada Johannesburg oo gaaray goobta uu dilka ka dhacay ayaa sheegay in ay baarayaan dhacdada iyo burcadii ka dambeysay, kuwaas oo halkaasi ka sameeyay howlgallo xoogan. maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa dalka Koonfur Afrika lagu dilayay muwaadiniin Soomaaliyeed. tani ayaa waxa ay ka dhigan tahay in ay sii kordhayaan dilalka loo geysto dhalinyarada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee halkaasi nabadgelyada u jooga. ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa dhibaatooyin badan waxa ay kala kulmaan kooxaha burcadda ah. dalka Koonfur Afrika ayaa waxa sanad waliba si joogto ah uga dhaca dilka, dhaawaca iyo boobka lagu hayo Soomaalida, waxaana jirin ilaa iyo hadda cid xil iska saartay wax ka qabashada falalkaasi.